Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Grand Online Academy. This is teacher Mohamed. And welcome to this lesson for today, which is about adjectives plus preposition combinations. Adjective and preposition combinations. Here in this lesson, we will learn how to use adjectives with prepositions. Before we start the lesson, please make sure that you like the lesson by pressing the like button and also share it with your friends and family on Facebook. Thank you very much. The other thing I want to let you know is that we are taking new English online classes. So if you're interested in that, you can contact us the numbers here on the screen. Thank you very much. Dhammaan soo dhawaada bulshada Soomaaliyeed iyo ardayda sharafta badan ku soo dhawaada Grand Online Academy. Magacaygu waa Macalin Mohamed. Ku soo dhawaada casharkeenan maanta oo ku saabsan adjectiveska prepositionada saxda la isticmaalo ama meelayaasha la isticmaalo sifooyinka. Haddaba intaynan casharkeenan guda gelin, fadlan casharkeen oo like garee, sidoo kalena la wadaag bulshada iyo qaraabadaada ku xidhan Facebook. Aad baa umahadsan tahay. Sidoo kale waxaan doonayaa la wadaago inaan qaadanayno fasallo cusub oo luqadda Englishka ah adigoo gurigaaga iyo goobtaada shaqada jooga. Fadlan haddii aad danaynayso nagala soo xidhiidh numberada ka muuqda shaashada. Aad baa umahadsan tahay. Bismillah ta'ala, like I said earlier, today we will be doing a lesson which is about adjective and preposition combination. Okay? Some adjectives go with certain prepositions, even though there are no grammatical rules that we can follow. It's always a good idea to try to learn adjectives with prepositions. Try to memorize them and practice them. For example, you write new vocabularies in your own notebook and try to put them in sentences. Haddaba, saalka nooga muuqata adjectives-kan aan haysano ama adjectives inta badan waxa lala isticmaalaa preposition ama meelayo gooni ah. Mid walba mid ba isqaataan oo ay compatible isku yihiin. Marka ma jira xeer luqadda Englishka ama grammarka ah oo sheegaya adjective-kan sifada lala isticmaali karo. Laakiin sida kaliya lagu baran karaa waa inaad practice garayso oo aad jumlad geliso oo ay saa yihiin aad ku qaybto biidhnilaahi ta'ala. Marka casharkeenan maanta waxaanu qaadan doonaa adjectives, halkan waxaa inoogu yaala prepositions meelayaal. Marka mid walba meesha ku habboon baynu ku buuxin doonaa, saas baad adiguna ku qaybi doontaa, ku isticmaali doontaa. Marka sidoo kalena waxaad isku daysaa inaad adjective-ka iyo preposition-ka aad isla qaybto oo aad markaa isla practice garayso maadaama aanu jirin xeer markaa sheegaya wada loo marayo adjective-ka preposition-ka ku habboon. Aad baa mahadsantihiin. And now let's start. Like I said earlier, we do have adjectives in our lesson for today and blank spaces. So here in these blank spaces, we will fill in with the prepositions that we have right here in the brackets, okay? We will basically use adjectives with the right preposition, okay? And we will learn which preposition go with the adjectives, okay? So here we go. Marka meelahan banbana waxaan ku buuxinaynaa prepositionadan kuwaas oo ah sida caadiga ee loola isticmaalo adjectives-kan. Okay, number 1. My jacket is similar, okay? Kelmadda halkan ku jirta waa similar. Marka jacketkaygu wuxuu la mid yahay yours, kaaga, adiga kaaga, yours. Halka space baa bannaan. Marka space waxa lagu buuxinayaa meelayaasha xaggan aan ku haysano. Okay, marka waxaan isticmaali doonaa ka saxda. My jacket is similar, kee ku habboon? To baa ku habboon. The preposition to. My jacket is similar to yours. Jacketkayga ama fanaanadaydu waxay la mid tahay taada. Similar, waa isku mid. Okay? Ma kala duwana. Number 2. He's really good, blank space English. He's really good, okay? English. Marka wuxuu ku wanaagsan yahay luqadda Englishka. Laakiin halka maxaa ka maqan sentence-ka? Preposition baa ka maqan. Marka adjective-kan preposition-kii uu qaadanayay waa inaan helnaa. Okay? Marka kee ku habboon? At. The preposition at. He's really good at English. He's really good at English. Wuxuu ku wacan yahay ama uu ku fiican yahay xaqiiqdii luqadda Englishka. Aad buu ugu fiican yahay qofkaasi. Si fiican ayuu ugu hadlaa. Okay. Marka the right preposition that go with this adjective is at. Really go with this adjective. Preposition-ka saxda ah ee marka lala isticmaalayo adjective-ka good waa at. He is really
good at English. marka meesha good ku aragto waxaad markaaba garanaysaa preposition kala raacinaya inuu yahay at. He is really good at English. Okay, number 3. My neighbor is angry. Okay, blank space. The party. My neighbor is angry dash the party. Okay, neighbor waxa la yiraahdaa jaarka. Okay, ama dadka aad isku meel degan tihiin ee isku dhow yihiin baa la yiraahdaa jaar. marka jaarkaygu is angry waxay ka careysan yihiin the party xafladda. Okay, marka sentence kalma dhamaystirna waayo adjective kan waxa halkan lagu buuxinayaa preposition ki ku haboona isagoo halka ku jira. marka ku noqonaya wuxuu noqonayaa the preposition is about. Okay, my neighbor is angry about the party. Okay, jaarkaygu waxay ka careysan yihiin xafladda la qabanayo. marka dabcan meel ku dhow xaflad lagu qabanaya taas oo marka buuqiya sawaxanka ay dhibsanayaan the neighbor. marka my neighbor is angry about the party. Okay, let's move on to the next one. I am sorry. Okay, dash being late. I'm sorry. Okay, halkan maxaa ka maqan preposition. marka we'll basically put and fill in there the right preposition with the right adjective. Okay, marka halkan muxuu noqonayaa preposition ka maqan waa okay, sorry about. Okay, sorry waa for. I'm sorry for being late. I am sorry waxaan ka xumahay for being late inaan habsaamay ama inaan soo daahay. I'm sorry for being late. waan ka xumahay inaan habsanahay ama aan daahsanahay. Okay, marka the right preposition with this adjective is for. I'm sorry for being late. Okay, number 5, number shanaad. I am interested. Okay, waxaan xiiseynayaa joining the course. I am interested joining the course. marka xagga maxaa ka maqan the right preposition. preposition kii ama meelayi ku saxdaha. Okay, marka muxuu noqonayaa okay, it will be in. Okay, the preposition that goes with this adjective is in. Okay, I am interested in joining the course. waxaan xiiseynayaa ama aan danaynayaa inaan ku soo biiro koorsada. la qaadanayo. I am interested in joining the course. Okay, marka waxaan xiiseynayaa ama aan danaynayaa inaan ku soo biiro koorsada. Okay, we'll move on to the last one, which is number 6. marka I will leave this to you. tan adigan ardayo kaaga tagaya bal waxaad isku dayi doontaa prepositionada halka ku jira ku saxda inaad ku soo buuxiso, and then you'll put it in the comment section below. inshallah marka comment section kaad ku soo qori doontaa. He is afraid the dark. wuxuu ka cabsadaa the dark, mugdiga ama meesha madow buu ka cabsadaa. halka preposition baa ka maqan. marka try your own, okay, on your own to fill in this blank space and write it in the comment section below. marka xagga comment kana waad ku soo qori doontaa inshallah ta'ala. marka xaggan waxaynu fahnay in adjectivesku lala isticmaalo sifooyin, lala isticmaalo prepositions, meelayaal kuwaas oo xeer qeexaya luqadda Englishka aanu jirin, balse ay tahay inaad isku qaybto oo sidan oo kale aad jumlada u geliso kadibna aad sidaa ku isticmaasho. You need to practice adjectives with prepositions, okay, and put them in your own sentences. marka try on your own to fill in the last one and put it in the comment section below. And that's it for today. Thank you very much. See you next time in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.